بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درس كمانتو إن شاء الله كما فوق موضوع عاصي كستو موضوع السياسة الشرعية دي اللي يرادها لغا هدلو لمتي الفقه والعقيدة لغا هدلو وموضوع عادو تربى ضرب اللارن المحاضرية لبيا صدحتون وكوبين كتب له لكن waxaan isku dayay mas'ala inaga xageena kaga saabsanuna kaga hadlo oo ah mal makhraj wada laga baxa ma jirtaa. waxaa xusid mudan waqti 17 sano ka hor ah mu'tamaraadkan kii koowaad ama kii koowaad muqadamadii ka horeysay yani sanadkii ka sii horeeyay 1992 Soomaaliya dhibtii badnayd ka jirto ayaan halkan muxaadaro ka galay la yiraahdo ayna al-hal maxaa xal ah. marka waxa noo muuqday dawladii burburtay dagaaladii qabaa'ilkii ka dambeeyay dhibtii taagnayd waa 92 waa maalmuhu Mareykanku soo galay markaasi December ee Bush ka daadagay Muqdisho restore hope ayaa waxaan ka hadlaynay ayna al-hal maxaa xal ah ama xalku xagu jira. maantana su'aashu waxay tahay mal makhraj is there exit way out ma jira. tunnel madow baa la dhex socdaa marka meel looga baxa ma leedahay. waxaan jeclahay inaanan masalada markaasi meel dhow ka soo qabanin ee aan si ballaadhan wax u eego waayo dadku inta badan markay meel dhow focused ku noqdaan dhacdooyinka markaa socda unbaa u muuqda ee waxa ka dambeeya uma muuqdaan. dhacdooyinka markaa jira ayaa u muuqda ee in badan uma muuqdaan waxa ka dambeeya. waxaa habboon inaynu ogsoonaano marka hore inaynu taariikhda in yar dib ugu noqonno. qur-aanka rabbi subxaanahu wa tacaala taariikh badan buu inoogaga warramayaa. taariikhdaasi ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa taariikh muslim, taariikh nebiyo, taariikh gaaleed, kuwa ilaahay ka baqaya, kuwa ilaahay ka gaaloobay, kuwa dhaalimiina, kuwa caadiliina, nooc walba taariikhdooda. waayo basharku waa bashar, bini aadamku waa bini aadam. meel kasta uu joogabana taariikhdiisu waa waxa bini aadamku uu mustaqbalkiisa ku dhiso. waayo noloshu sunan jaariya bay martaa sida physics-ka iyo qawaacidda saynisku ay u leedahay wado iyo qaanuun ay martay nolosha bini aadamkuna u leedahay. إلهي القرآن كوحكو لي ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ربي وحليه سبحانه وتعالى يدعي مفسرين تبرشيغان إلي قال يا مسلمين يا قول يصفى فانتي أيها إلهي وحيدي أمنيدينا واحد دوني سان يا واحد شاغان إيسان إذنك يا أهل كتاب كطونا ما هبا إلهي waxay iska jeceshiin arrintu ma aha baa la yidhi subxaana wa tacaala ee man yacmal suu'an yujza bih ciddii xuma samaysa baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waa lagu abaalmarinaya ama gaal haw ama muslim haw. haddaad ariiqa sawaabka a martid adigoo gaala abaalmarkeedaad helaysa. haddaad jidka qaldan dardartid adigoo muslima abaalmarkeedaad helaysa. ma ku xidhna
inaad muslim tahay iyo inaad gaal tahay waxay ku xidhan tahay camalka aad samaynaysaa nawcu u eegyay sidaa ogeed baa mawduucu siyaasa marka laga warramayo ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa boqorro jidkii nebiyada raacay waxaa kaloo qur-aanka ilaahay kaga warramayaa boqorro dictatorship oo wixii ka soo horjeesta madaxa ka gooyey waxaa kaloo ilaahay qur-aanka kaga warramayaa boqorro gaala ah laakiin wixii ummadooda dani ugu jirta raacay mithaalo boqorrada jidka nebiyada haya ilaahay wuxuu qur-aanka kaga warramayaa boqor la yidhaahdo maxay taalut reer banu israa'iil loo soo saaray fii suurati albaqara ilaahay kaga warramayo nebiyaa la socdo jid nebi buu hayay waxaa kaloo rabbi ka warramaya boqorro dictator ah fircoon baa laga warramayaa leh maa calimtu lakum min ilaahin hayri ana rabbukum ulaclaa waxaa kaloo ilaahay qur-aanka kaga warramayaa boqorro gaala ah laakiin markay joogto danta dadkooda aqbalay casiizu misr nebi yuusuf boqorkuu riyada u fasiree wuxuu tilmaamayay gaal buu ahaa laakiin wixii dantu ugu jirtay markii loo tilmaamay dantiisa ummadeed wuu raacayay waxaan uga jeedaa marka haddaynu qur-aanka daraasayno taariikh badan baa ku jirta taariikhdaasi waa mid gaal waa mid muslim waa mid nooc walba leh haddaynu taariikhda basharka ee caadiga kala daraasayno wax badan fasiruu fi lardi fanduruu baa ilaahayna yidhi dhulka socda oo u fiirsada bal kuwii la halaagay cidhibtoodu say noqotayo se dhulka socda taariikhda daraaseeyaa la leeyahy ilaahay sunankiisa arka waxaynu u baahanay markaa inaynu waxoogaa wax milicsanno milicsiga kan aan isku daya inaan wax milicsado si guud mara baan u tilmaamaya maalan culimmadu waxay sheegaan maxadaad waaweyn oo taariikhda islaamiga ay leedahay maxadaha ama munaatifaat ama meelo waaweyn oo taariikhdu la yidhaahdo switch bay samaysay ama way isgediday dhulal badan bay culammadu tilmaamaan maalan dhowr meelood haddaan ka tilmaamo taariikhda muslimiintu waxay isbedeshay ama adduunku wuxuu isbedelay markii nebi maxamed soo baxay calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii ay diinta faafiyeen oo ay 50 sannadood dunidu siday u taallay mooyaane si kale u dhigeen iyadoo dunidu qaybsan oo dulmi ka jiro oo kan ka jiro ayaa nebiga ilaahay soo diray calayhi salaatu wasalaam waqti taariikhdan miilaadiga mala 622 meelaha ku beegan dabeetana muddo 50 sannadood bay dunida si kale u dhigeen waqti baa nabad iyo barwaaqo lagu noolaa islaamkuna uu faafayo korayay qarnigii 11aad dabayaaqadiisii yani 97 markay taariikhdu maraysay waxaa bilaabmay maxadaadka waaweyn mid ka mid oo kale oo ah alxuruub asaliibiya in muslimka isaga la weeraro awal isaga ballaadhsanayay marka kan waxaa bilaabmay weerar cagsiga oo weliba qalbulislaam in la weeraro crusadeska wixii la odhan jiray muddo 2 qarniyu dagaaladaasi socdeen munacatafaadka taariikhiga waaweyn waxaa ka mid ah kuwii ugu dhowaaba qarnigii dhoweyd 1924kiina waxa la gebagabeeyey wixii la odhan jiray khilaafo islaami oo muslim isku xidha tii ugu dambaysay cuthmaaniyada turkiya waxay jamhuuriyad ku dhawaaqday muslimka kalena ay faraha ka qaado gaalo gacanta ay gashatay 1924 markii ay burburtay khilaafadii weyneyd ee islaamiga ahayd mahma la yidhaahdo way daciif bay ahayd kan bay ahayd waxan bay lahayd waxaasoo dhan isku soo dar haddana wax muslimiinta isku haya bay ahayd markay taasi duntay 3 shay baa soo wada baxay koo waxaa muuqatay dib u dhaca weyn ee caalamka muslimiinta uu ku jiro ee casrigaasi uu dib uga dhacay takhallufkii
iyo dib u dhic iyo aqoon yaridii muslimiinta soo baxday